waxaan jecelahay maanta inaan dadka Soomaaliyeed halkan ka salaamo aanan gaarsiiyo sidaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shaqada ay nala soo qabteen gaar ahaan dadka inta cashuuraha bixisa ama shaqooyinka kale nala haya waxaan mahad u celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii 4 sano aan si fiican isku soo baranay ayaanu mahad celinayaa cashuurihii ay bixinayeen ama dekada ha noqoto ama meel kale ha noqoto waxaan markaa idinka mahad celinayaa dhalinyarta iyo odayaasha iyo haweenka iyo ganacsatada yaryar iyo ganacsatada waaweynba sidaas iskaga xil qaadeen in cashuurihiina bixisaan wixii ku saagaagay qofka lagu leeyahay qof kara weeye qof aan karin cashuur laga qaadi maayo qof dakhliga hoose waxba laga qaadi maayo qofkii cashuur lagu leeyahay in cashuurta iska bixiso ayaa mas'uuliyadiina annagana mas'uuliyadeedu waxa weeyaan lacagta aan idin hayneen idinka soo ururnay idinku leedihiin inaan ku kharash garayno waxaad nala ogtihiin oo budgetka ku jira xaqna aad u leedihiin inaadna weydiisaan labadaasaan isku ognahay haddaad doonaysa dalkaagan inuu dhismo adeero cashuurta bixi